aad baa idin salaamaya saaxiibayna daawadayaal ku soo dhawaada waa walaalkiin Cabdulla Jamal Cabdulla maanta magaaladii Hargeysa waan isaga soo baxnay waxaan beer magaalada dusheeda waayo roob aad badan baa daay beertii markaan nimo waxaan la kulnay family aad u fara badan iyo dad aad waxaan ku leeyahay asxaabo oo isa soo waraya ma sha Allah farxad aad qurux badan ma la soo kulnay waxaan joognaa beeraha isha gobka oo waxaan ku leeyahay hore u arag aniga markii ugu horeysay aan imaadaa babaay aniguba wala mid baanahay waa maalintii ugu horeysay laakiin jawigu maanta waa class galab wanaagsan baa idin leeyahay meel kasta joogtaan waxaan doonaynaa in aan waqti yar qaadano idinkuna aan waqtina la qaadataan waliba waqtigaas oo aad iyo aad farxad u ah war farxa oo qosla oo keefa oo qosla noloshiina inta ka dhiman oo keefa inaadeen maxaa idin haysta waxaan idin ka codsanayaa siiro akhlaaq idinkuna dagaalay maanta siiro akhlaaq iyo kalaam ku jirta leena subscribe nagu saara teeda labaad waxaan idin ka codsanayaa inta aan fiidiyoga aanan bilaabin waa inaad subscribe-ka dac waa inaad kaga siisaan haddii kale horta waxay aan kala waa kelmad ka mid ah kelmadaha adduunka haye aniga iyo madaxweynaha South Africa baa isticmaalnaa war haddaad garanayso comment lagu soo qor waa la jibiyay waa mid ka mid ah dalxiisayaasha u yimid halkan in ay aad ugu nafisaan haye magacaaga أنا أحمد حاشي. sababta halkan u timid maxay tahay إن دتكاس إن ده كنت أقصد دوغن عقارنا وكله إن سكدا وضع. waaw kadib marka daawatid maxaad yara dareentaa walaal والله تشوف دقين هرت مسك حد يبربرين كفر راوي دقمة. marka hore stress baa hayay هذا ستريس بود بوق مقالات قرن سبوق ده. ay قال كان لوجي منا يعني. saasa ka raba dad weynaha maxaad ku programinaysaa ama aad leedahay meel markay stresska yara hayaan oo kale like meelaha oo kale inay dadweynaha waxaan horta ugu bishaarinayna halkan imaadaan meeshan waa meel qalbiga wanaagsan hatta kan in madax cuni maysid aan garaan halkan aad ku degjanaysaa madaxa wallahi billahi والله بالله تالله يا هذا واسطي هذا واسطي thank you so much محمود aad buu jawigan harto meeshan aad baan ula dhacay fir fantastic weeyaan oo meelan aad u jecelay muddo dheer bay ugu dambeysay su'aalan ku weydiiyo halkan oo kale ama jawigan oo kale markaad yara aragtid naftaadu maxay yara dareentay nafteedu waxay soo xisuusataa jacaylkii ooyo waxaan ka helaa waxaan ku doortay meesha inkastoo aan iska hay abwaanid aan hore heesu sameeyay hees tiraada iga daa naftayda ay hadallada nacbeerka aan laab saalax u dhiibay ka bacdina weersimo u dhiibay marka meelaha sidan oo kale waxaan ku dareemaa inaan hal abuur ku sameyn karo kale wow imika ma u malaynaysaa in aad hal abuurkii imika aad wadidmise wad iska may ayaamahaas dareen dhab ay ka keenay iyo waayaha nolosha iyo wax ii khaasiyo jacaylkiide markaan waxaan arkoon baan ka sameeyaa maalintaas aan igu dambeysay hadda jacaylkii kula ha imika waan isku soo noqonay ka waran jawigaaga imika markuu jacaylka ku yimid I am so happy oy saasa ka raba aad iyo aad u maasantay walaal thank you very much baraadan lahaa dadku inay markasta jawiga soo bedelaan sida family oo kale intay soo raacaan caruurta soo kaxaystaan halkan yimaadaan buuqa badan ka soo baxaan waayo noloshu happy bay ku fiican hada qosol nolosha oo farax waxaan ku qalbiga la iskama dushee ka shaadaha barin dulliga adoo dilan baafkiyo dibnaha qosol lagu khasba malaha farxad wax dhama lawaa raamin lahaa in meelaha jawiga aad u nuuraya inay soo bandhigaan wadankooda sida isha kubka ay yimaadaan si ay dadka dibadaha jiraan u yimaadaan wadankooda mar walba imaadaan halkan dalxiis u yimaadaan sababtoo ah wadanka wixii ka aaminsan si kale waxaan ku barnaamijinayaa mar walba inay halkan u imaadaan wadankooda ay horumariyaan wadamada kale soo horumariyaan oo bashiiro miyaanay maqal Hargeysa daawo tacalada Abdulqaadir Shuba markuu heesta qaaday malaha may maqal banu malaynaya may maqal wax kale maqleen waxay siraadeen lacag baa taalo dibadiyo lacagtii dibada u cararaya laakiin waad arkaysaa dooga quruxda badan si loo wada buuxo marka nimcada wax walba waxay taala wadankiina aan dhulkeena hey nimca fadhida dhulkeena nimca fadhida aad u salaam ya Bashiir thank you so much abdo ma hasan tahay waa inoo iyo waqti kale adiga barta ku saaraya halkee barta ku saaraya waxa ka soo saartay kaasina wuxuu ahaa Cabdulla Jamal oo doonaya in uu aad aniga ii galo waliba aad baan idin salaamay saaxiibayaal
maxaad leedahay asxaabta والله أصحابته وحنا لين يوسين نو قيمية نو احترامات الله يدين قيمية يدين احترام allah idin sharfo الله جيب teeda labaad midaan idiin sheegayaa meelaha quruxda badan leh ma doonayeen ay ka maqnaataan kala farx qosol oo nolosha farxa oo noo kaalaya waynaga qosolnayo waynaga soo yaacnay ooy aad aydi wada salaameynaa waa asxaabtoo idin leh noo kaalaya oo jawigiina yara bedela oo qosla oo nolosha farxa inta idinka dhiman wax kale CK-na waan salaamayaa CK-yow aan kale